Asxaabi casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay group by waxaana loo isticmaalaa in laisku geeyo xogaha isku midka ah ee ku jira column gaar ah. Marka xogahaas laisku geynayo waxaa muhiim ah in la adeegsado aggregate function kaas oon kaga soo hadalnay qaabka loo isticmaalo ama waxa ay yihiin casharkii ka horreeyay. Sidoo kaleetana casharkan inta aan ku guda jirno waxaa rabnaa inaan sameyno ama aan isticmaalno hyphen oo ayadana loo isticmaalo sida way oo kale. Laakiin farqiga u dhexeeya waxay tahay way waxaa la isticmaalaa ka hor group by, sidoo kaleetana hyphen waxaa la isticmaalaa kadib group by. waxaan rajeynayaa sharaxaadda SQL-ka inaad si qoto dheer ugu fahantaan nakeen aadaanaya SQL-ka. Okay, asxaabi waxaan joognaa SQL-ka. waxaan rabnaa inaan marka hore practice gareyno group by. sidoo kaleetana waxaan gadaal sidoo kaleeta practice ka sameyn doonaa ama qaabka loo isticmaalo aan isla fiiri doonaa hyphen. haddii aan ku horumarno group by, horta waxaan haysanaa xog cusub. xogtii horeeto waa ka tegey maadaama loo baahday in sharaxaad dheeraad ah ama si dheeraad ah loo fahmo. waxaan maanta isticmaalaynaa xogtan xoogaa way badan tahay ilaa iyo waxay ka kooban tahay 30 row. sidoo kaleetana columnskan badanaa ujeedaan sida order id, order date-ka, product category, wuxuuna ka hadli doonaa dukaan dhar lagu iibiyo xogtiisa waay. Okay, marka koowaad waxaan soo diyaariyey su-aalo aan rabno inaan ku fahanno casharkeena. marka su-aasha koowaad aan isweydiin doono waxay tahay inaan xogta kasoo ogowno noocyada dharka ee kala duwan iyo sidoo kaleeto wadarta guud lacag ahaan mid kasta. Okay, su-aashaan soo koobiyeynaa marka waxaan la tegi doonaa SQL-ka halkan aan keeno. Okay, waxayr aan yareyno inay noo soo koobantaa rabnaa. waa su-aasha koowaad. Okay, maxay tahay xogtaada ka ogow dhahne noocyada dharka ee kala duwan. waxaan rabnaa ku product category rabnaa noocyada dharka product category noqonayaan iyo sidoo kaleeto wadarta lacagta guud ee laga helay mid kasta. categoriyada kala duwan inta ku jiro mid walba lacagta goonida ee laga helay total saleskana aydan ku ogaan doonaa. Okay, marka group by u baahannahay category maadaama ay kala duwan ay ka kooban yihiin t-shirt dhowr mar ay soo laabanayso, shoes ay soo laabanayaan, ayagoo dhan waxaan rabnaa group by waxay kuu sameynaysaa inay kaga soo qaado min hal xabo. Okay, waa arki doonaa aan fiirino select yaa dhahaynaa. Okay, waxayr halkan soo weyneysano inaa arki weysaan laga yaabaa kana hoosaas kaga soo dhigi karnaa. Okay, okay, select waxaan dhahaynaa markood waxaa u baahannahay. Okay, ama table-keena dham aan soo wada qaadano. table halkaan noogu qoran yahay query-ga noo soo wada bixinayo inta noo keen. Okay, okay, marka koowaad marka maxaa rabnaa su-aashani waxay ahayd inaan soo ogaano noocyada kala duwan ee dharka. marka product category u baahannahay product category. sidoo kaleetana waxaan u baahanahay wadarta guud ee maxaan u baahannahay laga helay mid kasta. Okay, waxaan rabnaa marka sum aan dhahaynaa. sum waxaan rabnaa inaan isku soo darno total saleska. Okay, intaan marayna waxaan isticmaalaynaa marka group by isticmaalaynaa maadaama product ay aad u badan yihiin ama hal product dhowr jeer soo laabanayo anagana inuu nagu soo laabto ma rabno. Okay, marka waxaan isticmaalaynaa category inaan ka dhigno group by. Okay, maxaa noo soo bixi doona marka aan isla fiirino. waa kana category guud ahaan wuxuu ka koobnaay 1 2 3 4 ilaa iyo waxaan umaynaa 6 category inaan haysano. markii aan fiirin jadwalka oo dhan waxaan haysanaa category-ga waxyaabo fara badan. marka taas waxay ka micno tahay product category-ga inuu macna dhowr jeer soo laabanayo midkiiba. marka group by waxay ka saacidaysaa intii soo wada laaba lahaayeen inuu mid walba hal mar kuu soo qaado. sidoo kaleetana mid walba lacagta laga macnaha la gaday halkaan aan kusii ogaanaynaa. midka lacagta u badan la gaday waa shoeskan oo la gaday 496.8. su-aasha kale aan u gudubno oo labaad soo waqti noogu sii yaraado casharkani inuu ku fahna rajeynaa. Okay, su-aasha labaad aan soo qaadano kadibna waxaa ogaa doonaa waxa ay dhahayso. number 2. Okay, waxaa dhan raadi iibiyaasha oo ogow wadarta iibka uu sameeyo qof kasta. halkan aan isla fiirin marka iibiyaasha waxay yihiin waxaa noo jooga meeshan sales person Zahra dad kala duwana dukaanka ka shaqeeya oo wax iibiyo. marka waxaa rabnaa dadkaas wax iibiyaan inaan ogaano kadibna aan sii ogaano qof walba iibka uu sameeyey inaan ogaano. Okay, waxaan dhinaa marka select all from markaa la dhahaa dukaankeena marka mall la dhahaa select all from marka mall. Okay, halkan waa haysanaa sax jeclahay. Okay, kadibna waxaan dhahaynaa meeshan waxaan ka dhigaynaa ku ina raadinino sales personskan
okay command dhehna sidoo kale waxaan rabnaa column kale comma saas daraadeed u isticmaalinaa marka maxaa rabnaa column kale muxuu yahay qof walba iibka uu sameeyey qof walba iibka uu sameeyey okay kadibna halkaan samaan dhahaynaa samtaas waxaa la isku diri doonaa qof walba iibka uu sameeyey okay as total magacaas ka bixino markaa magaca u bixinayna aasaa dhahaynaa kadibna maxaa rabnaa inaan u bixino total amount iska dheh total amount okay sidoo kale maxaa u baahannahay inaan sameyno group by maadaama macaamiisha dhowr mar ay wax iibiyeen ee soo laalaabanayaan inaan group by ku sameyno waaye si qof kasta hal mar loo soo qaato okay kadibna sidaana ku haysana aan fiirino waxaa inoo soo bixi doona okay sales persons waa kuwaana marka mahad oo kaleeta ugu badan saa ujeedino saa ugu koreeyo wuxuu sameeyey lacag gaarayso 859 total amount uu sameeyey waaye marka sales personka ninka ugu badan wax iibiyo dukaankan waa mahad ninka in abaalmarin gooni la siiyo u khalmaa okay qofka uu hooseeyo waa ayaan okay su-aasha labaad saas kaga jawaabnay asla fiirno su-aasha saddexaad waxay ina dhehaysa ayadane okay waxaan soo qaadan doonaa su-aashan saddexaad halkan aan keeno waa number 3 okay su-aasha maxayna dhehaysaa afeeno waxaa dhahnay hel nuucyada lacag bixinta payment methodka rabnaa inaan soo helno kadibna waxaan ogaaneynaa tirada dalabka ay isticmaalaan mid kasta okay meeshan tirada dalabka tay ku ogaa karnaa marka tirada dalabka waxaan ku ogaa karnaa aan u laabano jadwalka aan haysano okay koorta payment method aan haysanaa macnaha waxay tahay su-aasha raadinayno inaan soo helno payment methodka ama nuuca lacag bixinta noocyada lacag bixinta inaan soo helno kadib halkaas waxaan ku ogaa doonaa tirada dalabka macnaha cash oo kaleeto meeqa mar lacag lagu bixiyey EVC meeqa mar lacag lagu bixiyey sidaas su-aasha u dhigan tahay okay aan soo wada qaadano halkaan aan kasoo koobiyeysanno okay kow maxaa u baahannahay dhahne kow waxaan u baahannahay product method u baahannahay okay product method sidoo kaleetana com aan dhahan maxaa usii baahannahay waxaan u baahannahay inaan count ku sameyno markaan sama dhahayno laakiin count u baahannahay waxaa soo dadaraynaa order ID-yada soo dadaraynaa sababta isku soo darayna waxay tahay inaan ogaano mid walba inta mar ee la isticmaala paymentigan inta mar ee la sameeyay inaan ogaano okay kadibna aan dhahno order ID okay order ID okay kadibna waxaan dhahaynaa waxaa group by sii dhahnaa payment methodkan group by dhahaynaa okay maxaa inoo soo bixi doona marka aan fiirino waxaan haysanaa payment methodka ugu badan ee la isticmaalo ama dukaanka waxaa looga gatay inuu yahay EVC oo 13 jeer waxaa looga gatay marka su-aashani sidaas ahayd inaan soo helno noocyada okay lacag bixinta noocyada lacag bixinta marka waa payment methodka cash EVC kaar caadi ah iyo zaad saddexdaas la isticmaalaa marka macaamiisha midka u badan ay wax ku iibsadaan muxuu noqday EVC marka dukaankan EVC xoogaa inuu xooga saaro waa xitaa qiimo dhimis oo dadka u sameeyo kaleeto inay dhibco ururaan markii EVC wax ku iibsadaan maadaama dad badan halkaas ay kaga soo xaroodaan sidoo kaleetana shirkadda hormuud oo kaleeto ayadana heshiis la geli karaa maadaama dad badan ay wax kaga iibsadaan in oo ayagana meeshaas ay wax macnaha sponsor wax uu ka helo dukaanka okay su-aashiina saasa kaga jawaabno saddexaad asla fiirino su-aasha afraad maxayna dhehaysaa okay aan soo koobiyeyno aan soo qaadno su-aasha saddexaad okay su-aashan way dheertaa laakiin waa arki doonaa waa su-aasha saddexaad soo ma su-aasha afraad waaye okay halkan aan fiirino waa su-aasha afraad okay okay su-aashan laba qodob ay ka kooban tahay okay markood maxaa dhahnay hel qayb kasta oo dhar ah kow waxaan helaynaa category-ga qayb kasta oo dhar ah iyo wadarta guud ee la iibsaday qaybtaas iyo wadarta guud ee la iibsaday markaas waxaan muujinaynaa inaan ogaano tirada dharka ee la iibsaday kuwaas oo ka badan 15 su-aashan waa inaan isticmaalnaa hivin group by waa isticmaali doonaa laakiin sidoo kale tan hivin inaan isticmaalno ayaa ku qasbannahay okay okay dhahna ku maxaa u baahanahay kor ka soo qaadano okay halkan aan imaano okay kadib maxaa u baahanahay su-aasha koowaad u baahanahay maxay tahay soo hel qayb kasta oo dhar ah product qayb kasta oo dhar ah markii la dhaho waxay noqonaysaa in aan helno category ama
product category inaan helno qayb kasta oo dhar ah. Product name way noqon kartaa laakiin product category ay tahay markaan sidaan jeclahay. Okay, aan hoos imaano product category-gan aan inta keeno. Waxaan usii baahannahay wadarta guud ee la iibsaday. Okay, inta mar ee kan la iibsaday quantity-gana marka u baahanahay inaan isticmaalno. Count aan dhahaynaa ama sum aan dhahno. Sum waxaan dhahaynaa quantity. Category-gan inta quantity ee laga sameeyey ama inta mar ee wax laga iibsaday sidaan u kala ogaano. Okay, group by dhahaynaa marka. Group by waxaa dhahaynaa product category. Sidoo kaleeto intaas markaan marayno hyphen aan isticmaalaynaa. Hyphen aan kusii daraynaa, kusii dabaqaynaa. Hyphen waxaa leenahay sum oo inta qofka uu iibsaday. Okay, intaan maxaa noo soo baxaya marka aan fiirino. Okay, markaa sum dhahnay sum quantity markaa dhahnay kadib waxaa dhahaynaa maxay ahayd tirada dharka la iibsaday ee ka badan 15 aan rabnaa. Marka ka weyn aan dhahaynaa 15. Marka aan rangarayno waxaa noo soo baxa. Okay, waa kana marka waxaa noo soo baxay accessories iyo shoes in yihiin in la iibsado macnaha product category-ga ay yihiin ugu badan ee laga iibsaday 15 ama 15 wax ka badan ayaga laga iibsaday. Okay, haddii hal mar aan fiirino guud ahaan product-yaasha su'aasha intaan aan ka tirno kadibna waxaa ogaanaynaa maxaan haysanaa. Okay, waxaan haysanaa shoes t-shirt jeans kuwaan marka kan 12 laga iibsaday dress waxaa laga iibsaday 11. Marka su'aashan waxay ahayd inaan kaliya helno samka inaan helno ama quantity-ga markii soo dar kadib inaan helno 15 inta laga iibsaday inta category ee 15 mar la iibsaday camal. Okay, maxaa dhahaynay marka hyphen aan isticmaalayne. Hyphen okay sum quantity taas oo ka weyn 15. Sum quantity-gan ka weyn 15 aan rabnaa. Okay, sidaas waxaa noogu soo baxay product category-gan accessories-ka iyo shoes-ka inay yihiin kuwa la iibsaday in ka badan 15 mar. Okay, su'aashayna saddexaad ama afaraad sidaasaa kaga jawaabnay. Dabcan su'aasha waxaan gudagelaynaa shanaad maxay ina dhahaysaa noo soo qaad. Okay, ina cashirka fahmaysan rajayna asxaabay. Cashirka intiisa badan wuxuu la socdaa cashiraanta casharkan ka dambeeyay kuwaas daa fahantay kana si dhaqso leh fahmi doontaan. Okay, su'aashana waa su'aasha shanaad. Maxaa dhahay hal waxaa dhahnay hal iibiyaasha oo muuji kuwa wadarta iibkooda uu ka badan yahay 300. Kuwa waxaa noola diray iibiyaasha mar kale waa inaan isticmaalnaa hyphen. Okay, laakiin aan soo qaadano aan rangarayno jadwalkeena si aan ogaano wax uu ka kooban yahay. Koodka ugu sareeyo mar walbo aan isticmaalno noo soo laabtana asagana noo soo qaad. Kuwa maxaa u baahan hal inaan helno iibiyaasha. Iibiyaasha waa sales persons-ka. Sales persons-ka markaan helnay kadib maxaa naga rabaa inaan ogaano wadarta iibkooda inta qof ee wadarta iibkooda uu ka badan yahay $300. Okay, maxaa dhinaca marka total sales-kana sum ka sameynaynaa. Sum waxaan dhahaynaa okay sum for total sales. Okay, kadibna group dhahno. Group by waxaa leenahay sales person. sidoo kale tani hyphen okay intaan horta aan fiirino maxaa noo soo baxay su'aasha ma noo saxan tahay mise wax khalad ahaa jiro. Okay, su'aasha way saxan tahay oo dadka lacagta okay sales persons-ka lacagaha uu fiican sameeyey dukaan guud ahaan waa kana waa Mahad, Farxaan, Zahra, Khadra iyo Ayaan. Kaliya anaga waxaa rabnaa dadka sameeyey ama iibkoodu uu ka badan yahay 300. dadka dhamma wada rabno kaliya 300 dadkaasaa focus ka saaraynaa. Laga yaabo inaan abaalmarin bixi rabno. Cashkan la daawanaysid magacaada ku soo baxo abaalmarin ku siinaynaa saaxiib. Okay, hyphen aan dhahno waxaan dhahaynaa hyphen sum total sales-ka waa inuu ka badan yahay dhahaynaa 300. Okay, aan rangarayna marka execute aan dhahno. Okay, waxaa noo soo baxay
waxaa laga reebay saajecla hal qof oo $25 sameeyey mise laba qof aa laga reebay dadka guud ahaan waxaa ma xasuustay laakiin hadda afartan qof waxay tahay afarta qof ee sameeyey wax ka badan $300. okay su-aashan sidaasaa kaga jawaabnay aan aadno su-aasha lixaad maxayna leedahay ayadane annagoo isla eegi doona okay su-aasha lixaad maxay leedahay su-aasha lixaad waaye halkan okay su-aasha lixaad maxay leedahay waxaa dhahnay hel qayb kasta oo dhar ah iyo habka lacag bixinta product category markaa helno adana payment method ka helaynaa kadib ogow wadarta iibka guud ee isku darkooda okay kadibna waxaan sii muujinaynaa keliya kuwa wadartooda ay ka badan tahay 200 okay korkan aan u laabana marka su-aashan xoogaa complicate waaye laakiin markaan waxaa rajeynaa inay fududaato aan gudaha u galno okay halkan maana rabin inaan soo koobiyo intaan rabay halkan aan imaano okay select from marka all from marka okay all from marka waa haysanaa su-aashan maxay tahay waxaa dhahnay hel qayb kasta oo dhar ah kuwa inaa helnaa guud ahaan product category-ga noo soo koobiyo product category okay coma dheh kadib maxaa sirnaa haddana payment method ka rabnaa habka lacag bixinta maadaama payment method ay tahay okay payment method ayadana koobi soo dheh payment method kadib maxaa sii rabnaa inaan kadibna ogowno wadarta iibka guud ee isku darka sida ku ogaynaa total saleskana waxaa ka sameynaynaa sum for total saleskaasa dhahaynaa okay kadibna waxaa dhahaynaa group baa inaan isticmaalno waaye group okay group ayaa leenahay group by maxaa dhahaynaa product okay halkan coma aan raacsin sidoo kaleeto maadaama saddex column aan wax ka soo qaadanay okay group by maxaa leenahay product category iyo payment method labadaas waxaa rabnaa inaan dhahno group by ku sameey okay kadib inta maxaa noo soo baxay horta bal aan fiirino waxaa noo soo baxay product category-ga iyo sidoo kaleeto waxaa noo soo baxay payment method-ka iyo waxaa kaloo noo soo baxay cash isticmaaleen cash maxaa lasi isticmaale 100 macnaha markii aan soo helnay product category-ga kadib haddana waxaa helnay product category-gan lacagta ugu badan ee lagu isticmaalo waa cash okay kadibna maxaa sii helnay haddana mar kale waxaa sii helnay lacagti okay tan waa lacagta qaabka u bixiyay cash aan u bixiyay lacagtu bixina maxay tahay waa lacagtu bixi halkan kusoo qorantaho waa 118.8 okay hadda marka anaga keliya intaas uma socon waxaan u soconay inaan keliya muujino kuwa wadartooda ay ka badan tahay 200 okay hyphen aan isticmaalayna marka hyphen waxaa dhahaynaa sum totalka keliya lacagtooda ay ka badan tahay waxaa rabnaa 200 okay ay ka weyn tahay 200 aa dhahna marka okay intaan haddii aan rangareyno maxaa inoo soo baxayo waa kuwana jenis iyo accessories waa kuwa lacagtooda ay ka badan tahay 249 ayaa waxa loogu kala iibsaday category-ga waa jenis iyo accessories payment method-ka ugu badan ee labadan isticmaaleen waa EVC plus iyo zad yaa sii badan zadkaa sii badan accessorieska zad isticmaale ayaga wax ku iibsadeen 307 dabcan inaa fahanteen rajeyna hyphen iyo sidoo kale si loo isticmaalo group by cashkan ee linka nii soo dhigi doonaa tablekan jadwalkan u dhammaystiran waxaa rajeyna inaad practice ku samaysaan insha allah waxaan sii gudbi doonaa cashiraanta xigo hadda waxaan ka gudubnay qaybta koobaad ee beginnerka SQL-ka waxaan u gudbi doonaa qaybaha xigo inkastoo xoogaa adkaan doonaan haddana haddii aad si fiican u practice garaysaan cashiraanta aan hadda kusoo bandhignay qaybta koobaad insha allah waxaa rajeynaya inaad wax badan ka fahmi doontaan dhammaantiin waa mahadsantiin channelka subscribe dhoo saraa muuqaalka link saara aniga waxaana cabdikaaf A9 nabadgelyo